igu faana saaga igu bara aqoontana akhriskayga nolole abidkaa i horumari awoodayda weyne inintayda baaqbaaq anigaadi leedahay waxaanahay afkaagi inta aan irmaanahay adna waad ab leedahay mar haddaan abaadana asal guurka waa dhaxay adduunyada af baa fura aqoontana af baa qora dhaqankana af baa sida aasaarta duugiyo taariikhda aadmiga afka udubdhexaad iyo aqalkooda weeyaan ummaddana hankeediyo ilbaxeeda weeyaan ubadkana asluub iyo aayahooda weeyaan iskuulka Sahal Primary and abtirsiinadaadiyo isirkii afkaagiyo waxaanahay astaantu dadku kugu aqoonsado waxaanahay afkaagii waxaanahay afkaaraha cudud lagu aqbaaliyo cod axadkiiyo fiirsiga codka lagu alooso garashada ugaaska ah aniga aruushee mar haddaan abaarsado kasmadiya aqoonta aradoo basaaso ergisada dhigaabaad ilbaxnimo ka dhowrtaay waxaanahay afkaagii waxaanahay afgarashadu udubkay ku joogtiyo arartiyo tusaalaha dabaq lagu abuuriyo dariiqiyo iliilaha kaska oodan loo maro waxaanahay afkaagii dhaxalkii adooga halka laga ilaashee ubuucdiisu taaliyo waxaanahay ardaagii ubadkiyo barbaartaba lagu ababinayo anshaxiyo asluubtiyo iidaanka diintiyo inuu jiray ilaahay erey lagu sheegiyo inta kuu amaarada halka lagu ogaan karo waxaanahay afkaagii igu faana saaga igu bara aqoontana akhriskayga nolole abidkaa i horumari awoodayda weyne inintayda baaqbaaq anigaadi leedahay waxaanahay afkaagii inta aan irmaanahay adna waad ab leedahay mar haddaan abaadana asal guurka waa dhaxay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كوي هاي مقعد مروة محمد أركنا سعودة فصل كسيدات دكسي جسال وحرب هالكن كسوة شدية موضوع ما كدوان موضوعية إنه هراء سيدا موضوعية أخلاقية قانت إن بدن لوجع عليان كان إن بدن لوجع علين هذا هو موضوع اسمه موضوع عصا مهمة أفكوليه بناء آدم كيأفك إنه هو هذا بقى waxaan su'aasha ugu horreysay isweydiinaa waxa waa maxay afku waa dhawaq erayaha isku nafaanta bulsho meel wada degan ama ku wada xiriidho hadaba haddii aan isla fahnay af muxuu yahay waan isla soo qeexnay waxaan isweydiinaa muhiimadda afku leeyahay waa maxay muhiimadda afku inoo leeyahay waxa weeyaan afar muhiimadood oo kala ah in lagu wada xiriidho inuu kaydiyo dhaqanka sooyaalka aqoonta iyo ilbaxnimada ay bulsha leedahay qodobkeena saddexaad ah in afku yahay qalab lagu fikiro afku waxa uu bulshadiisa u yahay baadiso sumad ay iskaga aqoonsato umada kale iyaguna isku aqoonsadaan hadaba afku waa nimco eebay nagu galaday nagu mana sheegtay bini'aadamka kaga duwan nooleyaasha kale ee kula nool koonkan nisaaranay maadaama iyagoo isku afkartaan luuqada aan lahayn ereyo lagu dhawaaqi karo sidoo kale afku waa qalab lagu fikiro umadna ku kaydsato dhaqankeeda ilbaxnimadeeda iyo wax xogaheeda oo dhan warartay waxaad ka soo qaadaan lacalla hadaynaan inagu af ayna ku hadalla aynaan haysanba marka luuqadaha kale laga yimaado af inagu ayna leenahay oo aynaan ku hadalba oo aynaan isku fahminba hadaynaan haysan imaka sii noqon lahayn bal xaaladda yara gala inagoo bilaa af oo bilaa luuqada yacni taasi maxayna tusaa in ilaahay nimco bini'aadamku dareenkiisa ku soo cabiri karo isku fahmi karo ina siiyey markaa afku inay bulshada ku wada xidhiidho faa'iideeyaa afku wuxuu faa'iideeyaa in bulsha inay jirto lagu garto oo marka af Soomaali la maqlo waxa la oranayaa ummad baa jirta ku hadasha afka marka jiritaanka ummadeed ayuu muujinaya waa identity sidoo kale ardayda afku wuxuu faa'iideeyaa dhaqankii iyo ilbaxnimadii iyo sooyaalka ay ummaddu lahayd inuu u kaydiyo imaka sheekooyin dhaqameed baynu naqaanaa maahmaahaynu naqaanaa murtiyaynu naqaanaa gabayaynu naqaanaa haddii aynaan af lahayn intaasoo dhan inoomay kaydsameen
marka ayaa inoo keediyey afkeena hooyo inoo keediyey waxaan xagan idinka weydiinayaa su'aalo ku saabsan afkeena Soomaaliga marka waxaan rajaynaynaa si fiican uga jawaabi doontaan su'aasha koobaad sheeg weedha ay ku jiraan dhammaan xarfaha af Soomaaliga أنا مقعد شيباح محمد waxa weeyaan su'aashu ay weedhoodhan ku jiraan sheekheena wiilkiisa curad gabadhiisa isfooxlaameys karto su'aashaas way saxday su'aashana labaad waxay ku leedahay sheeg weedh lagu soo koobo xarfaha la bilaabma ee afkeena Soomaaliga magacaygu waa Muwaale Cabdirashiid Maxamed waxaan dhigtaa galaaska fasalka lixaad waxaan ka jawaabayaa su'aashii la weydiiyey jawaabtu waxa weeyaan ana la garaadba واي صعب انا هاي سؤاشنا saddexaad waxay ku leedahay wananka iskale magacaygu waa Sakeeye Maxamed galaaska sheeg dhamaan higaada xarfaha Soomaaliga su'aashu waxa weeyaan 26 xaraf واي kala sheeg ba ta cha ha kha da ha sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya صعب ما شاء الله انا كنت a e i o u واو ما شاء الله صعب انا صوتي magacaygu waa Sakeeye Maxamed Cismaan galaaska waan kanahay haye su'aashu waxa weeyaan 26 xaraf واي kala sheeg ba ta cha ha kha da ha sa sha da a ga fa qa ka la ma na wa ha ya صعب ما شاء الله انا كنت a e i o u واو ما شاء الله صعب انا صوتي sidaas awgeed aqoon-yahanada afka bini'aadamku waxay ugu yeedhaan xayawaanka fikira afku waa sumad ama baadhiso lagu garto jiritaanka ummadeed haddaba haddii nahay inagu bulshada Soomaaliyeed afku waa shayga koobaad ee namideeya si kastoo lahjada u jiraan ama koonfur ama galbeed waqooyi loogu kala hadlo haddana waa shay namideeyo ay isku wada fahanno abwaan Yuusuf Ismaan Cabdilla Shaacir oo ka hadlaya muhiimadda afku leeyahay ayaa wuxuu leeyahay sida tan adduunyada af baa fura aqoontana af baa qora dhaqankana af baa sida aasaarta duugiyo taariikhda